عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه قواعد السلامي ميلو بقدون كجوكتان وولاش نجم MBR هالكا ديقا داوانا سانا نجم MBR channel بريهان وان كلا مشغول كيغا بدن شقوين كلا اسكا بدن ما شاء الله تبارك الله يوتيوب كا وحاضر ماليسا بريهان دنبي إنان ما أرتي ما شاء الله تبارك الله أنا كيرا عاجسي سوري دوادا ميلكا سو أدون كجوكتو وحان كلا هاي وحي كوتاهي او مناكسن عاو وحي انو ودا قصو او إلا تالي qisadan iyada ah ila talidaan aniga gabdhaha marka isla hadleeno waxaan isdhihi lahayn waxaan isku dhahnaa behind the camera kamerada gadaasheeda ayaa isku dhahnaa laakiin gabadhan qisadeeda waxaan jeclaystay bal inaan idinka idinla sheer gareeyo ee idin noqoto cibri qaadasho haddaan ahay gabdha Soomaaliyeed gabadha walaasheena qisadeeda saana ku bilaabanaysa waa gabar yar oo Soomaaliyeed waxay joogtaa wadankii magaalada ay joogtay magaceeda inaan sheego isna necessary qisadan baa muhiim noo ah gabadhan walaasheena waxay tiri abay waxaan ahaa gabar aad iyo aad u da'yar waxaan joogay wadankii magaalo kamid ah waxaan hayay on korinayay walaalahay ilmahooda gabar walaashay ah iyo wiil walaalkay ah ilmahooda macnaha gabadha walaasheed iyo walaalkeed qurbahay jiraan ilmihii bay u keensadeen ilmihii bay u korinaysay halka u haysay oo halkaas maartay biilkeedii ilmihii iyo halkaas ku wada hayso ay walaasheed iyo walaalkeed ku ogaayeen waxay tiri sidaa noloshaas iyada ah ugu jiray waxaan bartay tiri wiilkii markaan isbaranay tiri waa isla sheekaysanay kadib wuxuu ii soo bandhigtay tiri guurkii markuu ii soo bandhigtay tiri anigu waan ka aqbalay waan isguursanay waxay tiri waxaan noqday tiri marwaxaas oo meel degan wiilkii waxay tiri markaan cabaar wada joogno ayaa waxaan ka dareemay wiilkii markaan cabaar wada joognay baa waxaan ogaaday bay tiri wiilkan inuu ilmo dhalay ee ilmo u joogaan oo xaas uu hore u lahaa ay kala tageen laakiin waxay tiri markaan anay asaga isguursaneynay wax iimuu sheegin inuu xaas hore u soo kala tageen markaan qabsaday kadibna nafteeda waxaa ku qanciyay tiri maadaama hadda uusan lahayn wax xaas ah oo xaas kali aniga aan u joogo inaan isku sii baadar gareynin oo aan nolosheedii aan hor u sii wato muddo kadib ay tiri wiilkan waxay tiri biilkii waxyaabaha kuma fiicneen aniga waxay tiri waxyaabo badan iska dibiri jiray dhanka dhaqaalaha markii la dhaho waxyaabo badan iska dibiri jiray tiri saa asagoo shaqaysto oo lacag haysto ayaan aniga is caabin jiray tiri waxyaabo badan aan iska dibiri jiray markuu rabana wax uu isiin jiray markuu rabana imuu siin jirin bay tiri biilka anigoo arintaas ku qabo ayaa waxaa dhacday bay tiri ninkii inaan ka arko haddana inuu yiraahdo shaqaan aadaya isbuuc shaqaan ku maqnaanaya shaqadan ku soo dhaxaya iyo waxyaabo noocaas markaan la yaabay tiri ninkan magaalada dhexdeeda laga shaqeynayo oo maartay 4 beri 5 beri 6 beri uu soo dhaxayo uu leeyahay shaqaan ku soo dhaxaya oo yaabanahay ba maalinta waxa ogaaday tiri saaxiibkaagan inay saaxiibadiisi hore inay isku noqdeen aniga waxay tiri waagi baa ii bariyay ninkii baa qabsaday tiri waa isku dhacnay tiri waa isdagaalnay tiri waxay tiri waxba ma aragtay waa ka bedel waa arinta iyada ahayd wuxuu la soo istaagay tiri waa ilmahayga hooyadood waa xaaskaygii hore ayadaana iga codsatay inaan isku soo noqono sida la aljigeed maadaama ilmo meesha ay joogaan I don't need in ilmahayga nin kale la dhaxkeeno labadiina waa idin dhaqan karaa walaale macaanta baloonta dhulka dhig gurigaaga dhaqo okay way hay tiri saasaaba ku qanacsanaabay tiri biilashii iyo wixii oo dhan waxay tiri ana isdibiri jiray maxaa dhacday bay tiri marka inay walaaladay ogaadaan waxaa dhacday bay tiri inay walaaladay ogaadaan ninkan inaan anigu biilo walaaladay inaan anigu ninkan biilo bay ogaadeen waxay sameeyeen bay tiri walaaladay biilkii bay iga goosteen maadaama ay biilkii iga goosteen aniga meel cidlaan ku soo dhacay tiri ilmihii ahaaye oo lacagta ku qaadanay waa la iga qaatay ninkii wuxuu bilaabay tiri waxyaabo fara badan oo maaragtay oo aan ooga baahnaa inaan ka waayo totally hadduu guriga soo galay waxay tiri sida neef waqti halkaas uu jiifaa waxyaabo fara badan hadal fara badan communication wax dhan aan ka waayo tiri ninkii asaga dhan si buu isku cabriyay waxaa dhacday bay tiri xaaskiisii hore iyo ilmihiisii inuu kaxeeyo uu magaalooyinka kamid ah wadamadan Afrika wadan nabad ah oo maasha Allah tabaaraka Allah oo fiican oo waxbarasho adduun yaalo inuu ilmihiis iyo xaaskiisii u diro uu geeyo anigana waxay tiri markii dambe uu ii tiri xaaskii iyo ilmihii waan kaxeeyay waxaan geeyay magaalo hebel wadankaasaan geeyay saa ula soco okay baan dhahay tiri ninkii waxay tiri wax yar buu joogay maalintii dambe waxay tiri asagoo flight ah iyo muu sheegin tiri inuu dhoofayo iyo inuu meel u socdo iyo kale iyo muu sheegin bay tiri wuxuu dhahay tiri meel meeshana ka soo noqonaya
fakatax ani ma arkin adi ma aragt WhatsApp ali igala hadlaabay tiri waxaa la yidhaha meel hebel aan joogaan gobol hebel aan joogaan magaalo hebel aan joogaan gobol hebel aan joogaan magaalo hebel aan joogaan waan imaanaa waa soo socdaa manoo yaaban baa waxaan arkay tiri anigoo yaaban oo meel cidlo kusoo dhacay oo biil la-aan ah oo rafaadsan ayaa maalinta dambe waxaa yidhahda waxaan arkay wiil asaga qaraaba yihiin wiilkii baa wuxuu ii sheegay ninkaan raadinaysa intuu joogaa buu yidhi ma ninka tahriibe ma ninka saxarada iyo adduunka sii dhex maraayo yaa ma ninkaasaa ka hadlowsaa waan yaabay tiri gabadhi waagii baa ii bariyey gabadhaas markaa iyada ah marxaladda ay ku jirtana xaamilay ahayd waa qisada intay gabdho ila soo wadaagayeen iigu xanuun badnayd waaye gabadhaa halkan aan ka salaamaya gabadhii meel ay ciirsato male dad iyo ehel uma joogin magaalada Soomaali kamid ay joogtay biil male guri male waxa male waa yaaban tahay ilaahay bay qabtaa waxaa dhacda bay tiri inuu igala soo hadlo Yurub markuu tagay waxay tiri ima furo oo biil ima siiyo oo waxba ima qabto oo haddaan ifur dhahana ima furay tiri jiha way iga wareersanta talo way iga wareersanta maxaan sameeyaa gabadha walaashan qisadeedii halkaas ayay maarta nooga ekeed laakiin waxyaabaha aan kala dhaxbaxay oo raba inay idinka idin la sheer gareeyo intaana ka dhaxbixin gabadha marka waxay aamintay ama lagu programyo loo sheegay ninka inuu sixiran yahay oo xaaskii hore sixirtay oo ninkan sixir lagu la wareegay aniga gabadha ayada midaas iyada waan ka dhaadhiciyay laakiin idinka marka gabdhaha Soomaaliyeed idinka idaabana adiga hadda idaabanayso maxaad is leedahay gabadhaas kula talin lahayd qofkii ma hayso furiin ma hayso biil ma hayso wax ay hayso male xaamilana waay it's very painful arrinta ayada marka aniga aan qisadan kala soo dhaxbaxay waxay ahayd gabar walbo Soomaaliyeed oo hadda idaabanayso oo videogayga daawanayso waxaan kugula talinayaa nafteyda iyo naftaadaba mar walba aan kugula talinayaa waxay tahay qisadeedii waxaan kala dhaxbaxay pointyo videogina idinku dheereey ma rabo pointyada iyo qaladaadka aan kala dhaxbaxay ayaan buug iyo qalin ku qorayaa horta qof walbo bil aadan wuxuu maraayo waa qadar rabbi wax walbo kugu dhacayna waa wax ku qoran wax walbo aad maraysidna waa wax ku qoran laakiin dadaalkana waa laga maarmaan qaladaadka gabadhaas iyada ah iyo xiriirkii iyo guurkii iyo ninka ma la sixirin miya waxyaabahaas oo dhan see u dhahday maartay qofkan lama sixirin waxyaabahaas oo dhan insha Allah next video uga hadli doona anigoo u faa'iideynayo gabdho fara badan oo maartay maanta wadada sida qarka u saaran aad idin salaamaya ha iloobina channelka subscribe saartid oo aad nagu soo biirtid soo dhawaada in badan aad u mahadsantahay videogana like garee insha Allah